بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش كده شرفتي قيمة وحاجة داون نسان شنو عطيفي لينك تيك توك إنه حاجة داون نسان أحمد ديقسي فيسبوك كان شنو عطيفي waxaan rabaa walaalayaal si kooban inaan uga hadlo arrin markaasi baraha bulshada taalo oo telegramka la soo dhigay oo qarxis lagu soo qoray oo ku saabsan gabar Soomaaliyeed oo si sharaf leh loo guursaday si sharaf leh loo soo doontay aan wada daawaneynay magaceedu saddexan in macnaha maaragtay reerkeeda ay maaragtay aqbalayeen reerka ninkana ay markaasi dhahayeen gabadhaas aan u fadhinaa in nala siiyo nin iyo naag la isu siiyey muuqaal ka soo baxsaday ay Soomaalida waxa ay ka dhigeen macnaha maaragtay wax markaasi xumaan lagu daray ah oo qalad weyn ah balse aniga dhankeyga qalad uma arko sababtoo ah mistake happens always waxa dhacda marka sidaasi marka waxaan rabaa sheekadaasi inaan 4 qodob kala qaado. qodobka koowaad waa qodobka hore in kugu soo sheego ninkaas iyo naagtaasi meel cad oo public ah oo Soomaali ay markaasi joogtay oo social media laga daawanayo oo cudul bay arkaysay gabadhaasi iyo wiilkaasi la isku daray. waa labo nin iyo naagtiisa macnaha duco kale oo u dhaxaysay oo inay gaala dilaan aan ahayn ma jirin oo xaq u leeyihiin inay istabsadaan waana wax sax tan saddexaad waxaa waaye macnaha naagtan waxa ay markaasi aad ugu mahadcelinaysaa oo ay leedahay nin ragaa tahay ninkeeda waan xalaasheeda. tan afraad marka waxaan rabaa adiga inaan kula hadlo war macnaha ceebta in la faafiyo haddii ay soo baxsatay ma ahan haddii ay soo baxsatayna haddii ay gabadh u xanaaqsaneed ama wiilka u xanaaqsaneed ama qoys walba oo Soomaali ah oo dhisan adiga aad xun tahay walaalow macaanow macnaha ama walaalay macaanay xaq uma lehen adiga inaad meel soo fadhiisato caays waliba waxa arkay gabdho badan oo waliba naaga waaweyn ah oo aad macnaha u caynay gabadha dhahay saasana sameeynaysi waa waxa u baahan tahay baro noloshaas oo kale macnaha maaragtay waa loo baahan yahay ragga Soomaaliyeed oo baahan dumarka Soomaaliyeed oo baahan inta ku doon muuqaalka mid lamid ah Axmed Maxamed Deeqsoodan sidaas inoo geliyo